waxaa muddooyinkii u dambeeyey muran dhul oo u dhaxeeyey wiil uu dhalay madaxweynihii labaad ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo ganacsadaha leh shirkadda Faako Farxaan Xaaji Cali. dhulkaasi oo ay dowladda hoose u xukuntay ganacsade Farxaan Xaaji Cali isla markaasina uu dhisanayay ayaa waxa seeskaasi laga dumiyay, waxaana arrintaasi ka hadlay taliye Aamin, waxaana uu sheegay in dadkii dhismahaasi dumiyay ay soo xidhxidheen. annagu amni ahaan iyo boolis ahaan waxaan ku shaqaynaa dhulka shaqo kuma lihin, laakiinse waxa weeye sharciga naloo keeno dowladda hoose noo keento ama maxkamaddu noo keento ayaan ku shaqaynaa. tallaabaanaanu ka qaadnaa, kamana ogolin maalin walba inaan yaroo meel istaaga oo burburiya oo khalad sameeya kama ogolina. tallaabo sharciya ayaanu ka qaadaynaa, sharcigaanaan horgeynaa insha Allah bilaahi. wallaahi mulkiilaha halkan leh ee sharciga u haysta sidoo magaciisa ku qoran yahay Farxaan baa la yiraahdaa. sifar sharciyana sida dowladda hoose ay noo sheegtay ama dugmatiga ugu yaala wuu haystaa, sifar sharci u haystaa. khilaafaadka dhulka cid baa u xil saaran, amni ahaan cid baa u xil saaran, anagu fulinta ayaanu nahay. cidda u xil saaran ee dowladda hoose ama maxkamadda ayaa taa ka jawaabaysa. annaga wixii ka soo baxa dowladda hoose, maamulka dowladda hoose iyo maxkamadda ayuun baanu fulinaa. kama jawaabi karo lahaashiyaha dhulka cidda markii hore lahayd, cid baa u xil saaran oo leh. waxaa iyaguna arrintaasi ka hadlay guddiga ka garnaqista dhulka ee dowladda hoose, waxaynay sheegeen inay dhulkaasi u xukumeen Farxaan Xaaji Cali, guddoomiyaha shirkadda Faako. waxayna soo gashay muddo imika dhowr bilood laga joogo ayaa dhinac noo keenay dacwad ay kaga dacwoonayaan in dhul ay leeyihiin ay qolo isku hayaan, in looga jawaabaana wax xaq ay leeyihiin. dacwaddii waanu ka qabanay dadkii dacwoonayay, waxaanu samaynay inaanu dhinacii kale wargelino oo u yeedhno, namay ajiibin oo may ajiibin arrintaas.